basic 101 and khamiis kasta iyo jimco walba 9:30 the whole couple months oo socda sameyn doonaa. And maanta waxaa waaye topican ka hadli doona waxaa waaye internet basics. Internet basics aan ka hadli doonaa marka igu jira dadka i daawanayo marka dhamaystiin wuxuu soconayaa 20 minutes. Markuu dhamaado please miss iso dir I will send you shahaadada inaa complete garaysay coursekan si aad u keep garaysatid for shaqooyinka hadda shaqooyinada bangiyada Chase Bank iyo Walgreens, Walmart, Spectrums kambanidoodan waxay raadinayaan dad oo training haysta dhanka internetka iyo computers. So if you need a job, let me know also. Lakin shahaadooyinka haddaa qaadatid, it will help you get a job quickly. So maanta marka coursekan wuxuu qaadanayaa 60 minutes dhahan, but usually 20 minutes kusoo gaabinayaa. And it's not 60 minutes, ma dhamaystiri karno 20 daqiiqo, and then tomorrow I will finish the rest inshallah. And how I aniga magacayga sa taqaanin waa Farxaan, Executive Director of the Somali Center. And Saeed Qanin mostly is bringing resources, your information, your education classes. Maanta waxaa lahayn class oo inside oo ku qabanaya centerka. Waxaa kasoo qayb gala arday badan oo baranaysay classka. Macallin Sidi bixinayay classkaas, marka anigana waxaa la igu dira caawo online. So every day khamiis iyo jimco kasta waxaan bixinaa digital literacy classes, courseska iyo workshops kaasa sameynaa oo trainingka dhanka computerka. So qof kasoo dhameeyna waxaan haynaa program oo 10 weeks program oo 2 hours oo marka dhameysid waxaa qaadanaysaa laptop kaasna waa hayaa. If you want to know, let me know. There's 2-hour class jiro inaad qaadatid, and then you will get a free laptop, and then there's a 10-week program or it's like deep digital literacy. So class marka dhameysid kambaniyada sida Spectrumka, bangiyada oo shaqeyn kartaa. And then there's another course oo hadda aan sameynayno which is like 20 minutes course. Dada u baahan Soomaali aan ku dhameystiraa badanaa. Maxaa maanta ka hadli doonaa marka? Maanta waxaa ka hadlaynaa internet. Dad badan internetka way haystaan but ma isticmaalaan. Dad badan waxay fahmi laayihiin sideeda u advantage-ka hadda haysano iyo faa'iidooyinka hadda haysano adduunka waqtigan la joogo waa the best time, waa the best, we live in the best waqtigii waxaa joognaa yani fiiri internetkina uu kacsan yahay oo level waxa ka baran kartid, waxa ku faa'iideysan kartid, adigana aad ku shaqeysan kartid, aad information ku raadin kartid, mataqaanaa oo dad u faa'iideyn kartid. So leverage ka haysan internetka waxa waaye is unbelievable. So marka maanta waxaan ka hadlaynaa topic-yadan web browser, search engine-ka, navigating website-ka loo navigate gareeyo. Dadka qaar dad ku cusub jira internetka oo aan bari doono. Marka internetka marka waxyaabaha basic la raadin ogaado waxaa waaye web browser-ka. Web browser-ka waxaa waaye waa programka markaad furtid computerka ama iPad ha ahaado ama telefoonkaaga ahaado, markaad furtid page-ka u hore kuusoo galaayo waxaa la yidhaahaa web browser. So markuu kuu furmo wuxuu ku siinayaa Google, Google-ka marka wuxuu noqonayaa engine-ka wax ka raadinaysa. Let's say waxaa rabta inaad raadisay dealer, sooma dealerka baabuurta rabta, oo waxaa raadinaysaa rental guryo ama shaqaa raadinaysaa. Waa inaa engine-ka ku qortaa. Engine-ka marka waa search-ka. Waxaa isticmaali kartaa Firefox-ka, Google-ka, which is Google Chrome-ka caan hadda Google-ka aad loo isticmaalaa because of how fast uu yahay iyo how information-ka uu kusoo saarayo. Taasaa wax loo dhiga lahayn. Markaad furtid desktop-kaaga ama waxaa la lahaa computer, hadda aniga waxaan hor fadhiyo waa laptop. Marka hadda soo galay live-kan waa inaan furo waaye web, inaan furo waaye Edge-ka ha ahaado, Mozilla, Firefox ha ahaado, Google Chrome ha ahaado ama Safari. Ani waxaa isticmaalayaa Apple, so Safari isticmaala badanaa. So hadda Safari aan ku jiraa. So Safari markaa ku dhuftee isagaa wuxuu isii geenayaa address bar-ka. Address bar-ka marka waa meeshan. It's right here. Halkan waa korka meesha calaamadda guduud ujeedaa. Waxaa la dhahaa address bar. Waxaa ku qoraysaa marka website-ka u socotid.
meesha u socotid aad wax ratid let's say gmail baa rabta inaad aadid gmail aa ku qoraysaa waxaa rabtaa inaa aadid youtube aa ku qoraysaa waxaa rabtaa inaa aadid facebook aa ku qoraysaa waa meesha baarka oo la rabo inaa wax walba aad u gudbaysid inaad ku qortid so markaa ku qortid let's say hadda waxaa ku qortaba the city library aa ku qortid page ku geenayaa waa tabkan waadana waa lasoo jeedaa search boxna way dhahaan keyword aa gelinaya waxaa gelin kartaa daarta soomaaliya ku qoraysaa lese soomaaliya faarida in kuu saaraya markaa page ka furtid waa qaybtan oo hadda guduudan waa haye browse windowga markaa sidee markaa oo aad u fahmaysaa let's see marka 1 second I want to see in uu noo shaqeynayo si fiican loo arkayo systemkan 1 second hal waxaa raba inaan fiiriyo yes si fiican loo arkaa soo dhawaada and so markaad ku furan yahay this what you see the next one marka tabka waa haddii midaa ku furan let's say hadda waxaa ii furan oo kale pageki waxaa ii furan StreamYard studioan kasoo gala ii furan waxaan rabaa inaan mid kala furo samaa qaybtaas koro waayo okay mar walba qaybta uu calaamada guduudan ay saaran tahay boxka calaamadan guduudan always meeshaas ka hadlaya marka koorsaskan aan soo diyaariyey meel calaamadaas guduudan ayaad raacaysa soo calaamadan guduudan hadda waxaa ka furan 2 tabs ka furan marmar 3 ka furi kartaa 4 ka furi kartaa 5 ka furi kartaa way badan yihiin okay so hadda marka laba furan adoo kii hore xiran aa mid kala furan kartaa okay and qaybta marka hadda aad joogno every web browser aa furtid waxay leedahay back and forward kana back allah kana forward allah waa gaari markaa siinaysa hore iyo gadaal soma wax walba adduunka wuxuu leeyahay hore iyo gadaal irida waa laga baxaa waa laga soo galaa so hore iyo gadaal so kan haddaa rabta haddaa page aad joogtay pagekaas aad kan taawatid kana ugu soo laabanaysaa haddii aad ka gudubtay mar aad soo laabatay kana ku soo laabanay so back and forward waa bidixdana waa back midigtana waa forward waa hore u socda so calaamadan marka guduuda maxay tahay marka calaamadan guduuda waa pageka inaad stop galaysa or waxaad taabanaysaa tab khaldan aad taabanaysaa ama meelaad kan oo ku saajinaysaa marka stop waa marka reload refresh calaamadan marka oo wareega ah laakiin waa circle oo half ah maxay tahay dad badan maxay isweydiinayaan calaamadan markaad pageka furtid maxay tahay calaamadan waa refresh ama reload page aad taabatay pagekii uu wareegsanaya maanta oo idil waxaa samayn kartaa waa taabanaya refresh ku noqonaa waa sida haddoo kale iphone markaa isticmaalaysid hadduu kaa isdoo noqdo hoos u riixda ama gacanta fartaas ku dhexaysaa refresh waa ma laha telefoonka tan calaamadan laakiin internet laptopka iyo weliya desktopka so pagea ka heshaba let's say pagekana ka heshaba or pagea warka ka dhageysatid ha ahaado hiiraan ha ahaado ama somali national tv ha ahaado ama universal tv ha ahaado pagekaas mar walba saa u raadinin calaamadan oo xidigta ah oo pageka saaran waxaa la yidhaahaa bookmark or favorite maxay u taalaa meeshaas marka waxay u taalaa pageta mar walba gashid intaad baari lahayd waxaa leedahay bookmark waa maagaraysanaysaa marka maxasuustaa markaad quraanka akhrinaysid bahal baa jiro oo xarigaa jiro somaa meesha ooga tagta soos kale waa meesha ooga tagta unbaa saaran kartaa saa ugu soo laabata marka injinada marka waxay u kala baxaan 4 waaye oo aad u caansan oo wax lagu raadiyo oo injinada oo informationka lagu baaro haddana waxaana soo gudbinaya meel baan kasoo baaray somaa informationka meel baan kasoo qaaday so waa inaa isticmaashaa 4 mid ka mid ah waa Edge Mozilla Firefox Google Chrome iyo Safari ani labadan aad u isticmaalaa Google Chrome iyo Safari labadan kale ma waxaa soo goora isticmaal kan dadka waxaa isticmaala badanaa oo Microsoft jaan markaad page afurtid ama search engine afurtid qaybtan guduudan aa ujeedaan
qaybtan waa meeshaad formationka raadinaysa aad ku qorayso. haddaa rabti inaad ku qorto farxaan cabdi ama magacaaga raadi, ama waxaa raadinaysaa internet basics, ama formation waxaa rabtaa warkii maanta dhacay, wax walba aad ku qortid wuxuu soo saarayaa formation. marka wax walba aad qoraysid wuxuu ku siinayaa recommendation. hadda lase waxaa qorta waa Somalia, wuxuu ku dhihi karaa Somalia oceans or Somalia maps. adi markuu ku siiyo recommendationka ama maxay dhahnaa yani waxa ugu soo dhawaalo dadka ay baarayaan waa ka furaysaa. so markii aad ku dhufatid waxaa rabtid lase Chicago waa ku qorta landmark, ama waxaa ku qortay Louisville Kentucky, meeshan guduudan waa meesha formationka laga raadiyo, ama waxaa ku qortaba dagaalada adduunka jiro hadda kale Sudan dagaal baa ka socda, ama waxaa ku qortaba Sudan war, waxa ku qoraysaa un. ama waxaa ku qoraysaa Kenya politics, USA election, wherever aad ku qortay meeshan wuxuu ku siinayaa options, uu ku siinayaa marka internetka information oo raadiyaa. so markaad aad ku dhufatid wuxuu ku siinayaa result. waxaa raadinaysa sawiraan uu ku siinayaa ama qoraal, adaa marka garanaa wax u baahan tahay. waxaa kaloo ogaataa pageska markaa ku dhufatid, hadda fiiri qaybtan oo kale oo u korayso, markaa page wax ku qorto hadda city of Chicago ku qorto google wuxuu ku leeyahay all ma rabtaa, ma newskeeda rabtaa, ma mapkeeda rabtaa, ma sawira u baahan tahay, ma books ba u baahan tahay, ya haddana wuxuu kusii leeyahay city of Chicago. haddaa u baahan tahay bas inaad aragto sawiraan, waxaa leedahay sawiraanta image ugu dhuf. haddaa rabti maps aa leedahay. haddaa u baahan tahay wararka city of Chicago intaa ku qortsama you select. so degdeg wuxuu ku geenayaa waxa u baahan tahay. haye resulti markuu sii soconayaa, let's see. sometimes marka wax baarti hadda let's say Chicago qortay, wuxuu kuu soo qorayaa waxyaabay dadka baareen. waxaa ka mid ah historical Chicago landmarks pictures Chicago. so which means always wuxuu ku siinayaa recommendation mar kasta. waa ka gudubtay hoos markaa si aadid waxaa arkaysaa additional researches. so marka su-aasha middaa raba inta waa marka mar walba wax baartid, ha ahaado chiropractic, ha ahaado insurance, wuxuu doon aad ku qorto injinke, waxaa iska ilaalisaa ads. waxa loo fiiri hadda adskan oo kale, hadda qofkan Chicago landmark ku qoray maxaa soo baxday Chicago tourist. ad means waa company oo xayisiin bixiyo, waa lacag uu bixiyey si uu pagekiisa usoo kormo, because internetka waa so many pages. waa pageka inuu qofka yimaado, inuu qofka halkaan imaado, ama waxa baaraysid waxaa waaye calaamadaasna ay ku qoran tahay AD, that means qofkan lacag badan uu ku bixiyey inuu pagekiisa meesha imaado. so ada always fahan, always midda aad ku qoran tahay. hadda sometimes waxaa ku qorta laga yaabaa social security office ka rabtaa. social security office waa government agency soo maha, ama immigration office aa ku qortay. AD ma dhihi karo, ma usoo kormari karo, because badanaa hay-adaha dowladda ma bixiyaan lacag inay pagekooda hore imaado. so marka pageska ay ku qoran tahay calaamadaas guud mujida calaamada AD-daas waa qof shakhsi wuxuu soo marsado. marka always ani waxaan dhahaa iska dhaaf kuwaas, you go 2 mar hoos u deg ama 3 mar meesha rabtaa tegaysaa, because sababta waxay tahay aadkan waa anoo kale company furtay oo kor iskeenay. sometimes waxaa raadinaysaa information pageska ugu horeeyo, haddii calaamadan leedahay waxaan kula talinayaa ha gelin, because dad shakhsi ayaa iska leh. so marka waxa oo formationada oo dadka lacagta ku bixinin hoos yeelan, laakiin hadduu hore yimaado lacagaa lagu bixiyey, so waa lagaa gadayaa, waa xaysiin, waa basically xaysiin waa soo taqaanaan. okay isug marka waxaa ku xigto haddana saan ii sheegay, wax walba aad ku qortid google-ka waxaa helaysaa option ah all mapska magaaladaas, ama images, newska, shopping haddaa rabtid, everything. so la soco mar walba tabkan uu ku fudeynayaa. okay hadda marka waxaa ku dhufatay images example waa sawiraantan oo magaalada ku tusinaya. haddaa Soomaaliya ku qortid google-ka aa u baahan tahay sawiraanta bas Soomaaliya, just click images.
sawiraa ku dhufanaysaa ama waxaa u baahan tahay soomaaliya wararkeeda newsa ku dhufanaysaa so wuxuu isku soo qabanayaa marka waxa codsatay iyo waxa oo formatkaas u samaysan okay haddoo kale let's see this activity we don't need activity also laabanina okay let's see why it's not okay so inta rabaa okay okay sorry guys waqtiga la gaaray waa 9:50 waa ina joojiye waaye saan ii sheegay I don't want inaa waqti ka kormaro laakiin topic hadda u gudbaayo wuu dheeraan doonaa beriya halkan kasii wadi doonaa maanta intaan ku joojinaynaa videogan waa save garaynayaa marka waxaa sameynaya waa dib u daawan kartaa haddaad daawanaysa adoo anoo live ku jirin you can go back and watch but waxay ahayd waqtiga inuu ku dhammaado 9:50 20 minutes ka badan ma qaadanayo maalin walba si aad waqtigiina idinkana aad uga faa'iidaystaan marka waxaad leeyahay assalaamu calaykum waa inuu insha allah tomorrow 20 daqiiqada ku dhamaystirina haddii la yiraahdo wixii su'aal qabaa comment igu soo qor soo aan kaaga soo jawaabo tomorrow insha allah waan salaamayaa salmo thank you inta ardayda meesha ku jirto waa inuu berito assalaamu calaykum